hilibkii markii la kariyay ee la bisleeyay la shiray ka qaada xunbacad ba bukhda ka gurtay dheerigi waan ka qaadnay dhulkaan dhignay ka bacdi hilibkii saasiisu bedelay midabka ridka ay casaanka adka ay isu bedelay hilibkii maraqina urtaa qarmuunkaad moodidin bakhtiyo kale neef bakhtiyo kale yahay isu bedelay uu madoobaaday midabkaas isu bedelay markii dambana urtaas uu sameeyay yadna waan iska qaadnay dhulkaan dhignaa kana waa hilibkii laga guray markii dhergi laga soo wareejiyay way hilibkii saas isu wada bedelay marka maxaa ku dhacay cuntada waxa ku dhacaysa way xumbaynaysa markii hore sida toyd la qasay oo kale marka dambana midabkeeda isbedelaya yoorteeda qarmuuni marka weeyay barqina midabka bigayska asaas isu bedelay midabka bigayska shaha bigayska kala abu noqda yoor qarmuun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة معتساء هي كدعوة دوان مقالة برعو قارهان حافظة أكتوبر دعوة داسي رون يوين لغو داري أيي لهاي وحنو كوسا قانا هاي قوريجي لغسو ورمايي أي معتساء دو كدعوة waxaan nula joognaa qoyskii waxaan idin soo gudbinaynaa sida ay wax u jiraan inta saxda iyo inta lagu daray waxa barnaamijkan idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdi Malik Sheekh Muuse Aldoon muqaaladana waxa kala qaadaya Cabdi Qaadir Cismaan Dubadi iyo Maxamed Jookar walaashay way dhimatay markay afar habeen mootanayd ayaan gogashii laabnay ayaan subaxda kamid ah hooyadayna joogtaan caano u soo qaadnay caanihii way isbedeleen dukaankaas aan ka soo qaadnay haanti biyaha cuntadii hilibkii bariiskii wax walba way ku dhamaatay wuxuun baa naloogu yaacinaya anagu wax halaale waxaanu samaynay wax ilaahay keenay mooyo waxaanu samaynay ma jiraan waxaanu xumaynay ma jiraan waxaanu aasnay ma jiraan wax halaale baan cuni jirnay reerku waa wada salaad sax inantaasaan noogu yaro waa tukataa tiyaalka fadhidimaada taasaan noogu yaro waa tukataa waa wada tukana waxaan xalaal ahayn ma cunno dee ilaahay isagu subxaanahu wa tacaala waxaan uu keenay ya dadkiina nala rakaabsada dal iyo debed waxa ay naga sarfinayaan waxaanu samaynay ma jiraan dee waa hagaagsannahay annagu imanka waa hagaagsannahay dee markaa dadka kane wuxuu nagu arkay garan weyne ummadda tan nagu soo jabteele meeshana waxyaalina aan daawanno waxaan ilaahay keenay de maxaaba laga daawanayaa maxaaba laga daawan weel baan ku shubanaa weelka de markiiba intaanay naga goynayaan ku xabi jir intaanay isbedelin baan cabi jirnay cuntadana de wixii isbedela waan halkaasaan iska dhigi jirnay maan cuni jirin marka saa loo soo dhigo imisa suugaysan inay isbedelaan ma iyagoo dabka saaran baa qaar isbedelaan iyagoo dhulka yaalana way isbedeli jireen marka maxaad samayn jirteen waan iska duwi jirnay quraan baan iska akhrisan jirnay bas way saqabna guriga waan ku joognay dhamaantay cunto markaad u baahataan cuntada markaan u baahno ama suuqaan la hadli jiro guriga aan ku jiray ama xaafadahana loogu soo karin jiray wax yar bay yarsu marka aad cuntada ka soo iibsataan dibadda ma noqon jirin waxba naga ma noqon jirin marka suuqana looga keenay aan cunayno waxba naga ma noqon jirin waxba naga ma noqon jirin isbedel kuma dhacay isbedel naga ma dhici jirin marka maxaan ku dhahdaa xaafadana loogu soo kariyay adigu de quraanna waan ku akhri jirnay inta aan quraan ku soo kariyay guriga marka loo soo kariyay isbedel jiray may marka guriyaana loogu meel kale hadii cuntaas ka timaado isma bedeli jirin laakiin marka halkan lagu kariyo bay isbedeli jirtay bas marka anagu wixii marka quraanka aanu ka gaarsiino waan cuni jirnay inan baa hadda jira inankaasaa jira daraato jimcihii quraacda way iska kaay wada bedeshay isagu waa nooga horeeyay quraan buu guddi ku wada akhriyay iska cunay ma sha Allah waxba ma noqon markii horena guriga wax ka jirtay walaashay waxay tiri raashinka cidiyaa lagu guri jiray cidiyaha marka lagu guro anagu yoomal xisaab maalinta ilaahay la hortaagay waxaan arkay cidi xinna leh oo walaashay tustay laakiin had iyo jeer cidiyaa laga soo guri jiray raashinkooda marka waxaan waa wax walaashay lagu dilay oo naloo adeegsaday meel ilaahay nooga yimina meelna looga yimina garanin marka cidiyo way sheegi jirtay xoran jirtay cidiyaan korka had iyo jeer gabadh ilaashiyada ku xidhan way haydo ilaashkay dawada ka qanjir bukaan bay hayd boqol soon bay haydo saacad walba waa markaysta ama afur ama maxaan ku dhahday ayay ku arki jirtay cidiyo raashinkeeda ku jira dawladna waxaan jirtay walaale guriga waxba jooga cidiyaa raashinka ku arkay dabeedna walaal bulshakiga iska saaro quraanka sana walaale waan guraanadahay saacad walba albaqara gurigeeda ka bixi jirtay rikoorkii albaqarada uu naga jabay
cajaladina waa nalaga jabiyey marka dee culimada iyo islaamku way arkayaan meesha marka inay dee wuxuu wax inantii ku socday yihiin markii dambena hooyaday un bariga ka dambeysiyeen hooyaday baa sheekada ku socotaa hooyaday un bay sheekada duraadun bayna saamaysay inteeda kale hooyaday bay raashinka iyo mucjisad ku socotay hooyo maxaa dhacay raashinka hooyo un baa isbedeli jiray kan hooyo siinayno baa isbedeli jiray guriga raashinka kale lagu kariyaa isma bedeli jirin isma bedeli jirin ilaa iyo jimcihii buu raashinka dadka kale isbedeli idinkan waad raacday ha adigu 4 cashuun baa raashinku isbedelay oo annaga nagu dhamaaday laakiin hooyaday buu ku koobnaa hooyo salaam alaykum marka ay cuntada iska kaabadashay maxaad samayn jirtay tii way iska dayn jiray waa runta mudeen baan sheegaa naa iga qaadan oran jiray aanaha igu horeeyay naa aanu qaraada markaasaydan waa geela abaarsaday iska dhan naa ma waa waabaaye iga qaada markaan dhowr goor caanihii diiday iyadana caana liido u iibino daasad caana liido daasadaydaasaan iska cabbi jiray dabadeed caanihii markii dambena cunnadii baa la iigu dara cunnada saan u dhab markaan ama mar huro ama laba huro iyo qadhaadh noqotaa garba weyn oo dee dacar la milaya markaasaydan naa waxbaa lagu daray baliga hooya markaasay wada dhadhashaan ayada qadhaadha waa raashinka waa ka adag waa ka la cabayo wax walba qadhaadhkaasaa la iigu daraa dee dabadeed markaasaan ka cararaa ayna anigu cuni maayo cunadana iga daaye markaan yaabay isbedelka midabka ma isbedeli jiray haayo way isbedel jiro markiiba waxay noqon jireen huruud madow markay huruudda noqdaan cabaar yeelaan iyo casaan isu rogaan marka dambena sidii wax dhiig noqday wayba noqdaa cuntadii yaa marka dambena sidii wax dhiig noqday yayba noqdaa waana cunnadaas waana karaysaa ha markaa weelka ay ku raagto waa karaysaa dee markaa cunnadii saasay noqotay markii dambena reerkiiba waa saamays oo reerkiiba waa lagaga wada dara dee ilaahay baa garan waxay tahay garan mayne markii hore aday kugu gaar ana ii gaar ahayd markii hore cunnadayda lagu dari jiray aniga inanteedaasi waa 13 jir hablehe 20 guur yaanu inanta wada joogno waanan hablahayga kale la joogno waanu wada isku cunna ahay bukaan bay ahay arliga meel ayaan dhakhtar iyo wadaad marin ma jiro markii ay dhimanaysayna waa loo sheego annaga waa naga qarisa geerideeda waa la tusay waa dardaarantay hablaheeda dibadda jiray la dardaarantay waxay tiri guriga labadayda hablood baa soo dhisay labadayda hablood lama laha labada hablood baa dhisay laba caruur oo kale walaalayihiin oo midba aabe yahay labadooda caruur wixii ay ka siiyaan waa iskeed waa waxay u gartaan weeye laakiin lama dhaxal kala cabdi cawad bay u tagtay cabdi cawad bay waraaq ka qortay yuusuf cabdi cawad iyo waraaq ka qortay waa la dardaarantay wadaadkii arrintii bay u sheegtay wuxuu yiri wax dhaxal kama kala markii dambana habliiba sidaa noogu warramay ay iyadu la dardaarantay iyo sidaa noogu warramay dee markaa iyadiina iska dhimatay habeenkii lagu dhiftay halkaa dibaddaan fadhiyey iyana dibadday ka timi suuqay ka timi markaasay ina xaggaad qabatay markaasay tii hooya ina durqun baan soo kabay oo ay kabniyii ka soo furay markaasaan halkaa wada fadhiisanay dibaddaa labadayadiiba iyana gurigay ku tiirsantay anna bahalkanaan halkaa hore la fadhiyey markay cabaar fadhiday ita alla hooya nabar culus baa laygu dhiftay hooya haa nabar culus yaa laygu dhiftay markaasay quraan akhrisatay markaasay bisinka qabsatay markaasay shahaadatay markaasay shaydaanka iska naartay markaasaan yarteedaa idhi hadhuur yaroo aanu karsanay na u keen raashinkeedii yartii markay sidaa u soo dhigtay yay tii na ardo iyo xaawo igu yar waa labada ay walaalahayiin inantiina soo waaba miyir beesha markaasay kacdo iyadoo dabaq lebay daaradda weytiin waa jiifsatay anna intaan bahalkaa qaarka dambe ay xanuuno intaan saa u soo qaatay yaanaa waa waxeedii u keen cajaladii iyo rikoodhkiiba waa la jebiyey markii quraanka la geliyey waa labadiiba waa la kala tuuray dee haal cajaladiina waa kala jabtay rikoodhkiina waaba yeedhi waayey shiq na horta mayuu jaba ilaan maan eegin wakaa labadiiba halkan imika yaali guriga yaali
inantii naftiiba looguma hakan iyadoo sawmiyir leh oo sidaa dhidid uga soconayo dhidi oo sagxadda u yaacayo yay noo yimaadeen markaasay tani tiri maxaa biyaha ugu shubteen markaasayna kuma aanu shubinoo halkaaba uma dhaafin horta markaasay inama ay dhashay la hadashay tiri keena gaadhi waa kuwa qaaday baaxiir bay laba habeen ku hayeen inantii ka soo rayn weydi subaxii dambe subaxii saddexaad galabtii la keenay subaxeedii yaa wadaadkaa baash ciraashka haystaa gabadhi waa laga dul hadlay waxbaa ka dul hadlay naag baa ka dul hadashay alla wadaadow iga daa alla wadaadow iga daa alla deriskaana he iga daa alla wadaadow iga daa alla wadaadow iga daa ana ilaahay ku kashifo inaan ilaahay ku kashifin hay kashifin markaasuu alla ku kashif naamiyay ku maagtay ay tiri alla made waa qof islaam oo muumina oo ima maagin oo ima caayin anaan noloshayda u quuri waayey markaasuu wadaadkii baa ka kacay markaasuu ina dad ma leedahay ay tiri mada ma tukataa ay tiri mada horta markaasuu wadaadkiina ka kacay dabeedna inta habeen subaxay sidaa lahayd habeenkeedii bay go'day markaasuu yidhi xaggaad wax uga soo qabatay markaasay tiri onodka markaasuu yidhi lacagtaad wax ugu soo qabatay intay ahayd markaasay tiri 250 markaa 250kaasi ahaayaa dollar layna haayaa war uma hayno markaasuu yidhi ma waxaad si reerkoo dhan laa anigu hadalkii ay u celisay ma maqlay markuu reerkoo dhan miyaadan sodhan waxaa ka hadheen hadalkii ay u celisay waxbaa iigu dhiman deedad markaasuu wadaadkiina ka kacay oo yidhi inaanka alla kaa qaad hooyo waxaad iga warantaa inantaada ee soo xanuunsanaysay muddada dheer soo xanuunsanaysay ee cuntadeeda ku arki jirtay cidiyaha markaa ma keligeed bay ahayd mise dhibtu gurigay markaa soo sameeyay iyadiyo inanteedun baa sheegi jiray iyadiyo inanteeda yar inanteedaa yar iyo iyada yaa loogu guri jiray aniga la iguma guri jirin inantaasoo cuntada afka ku haysay odhan jirtay alla bal hooyo eeg cidida markaasay walaalaheed iyo dadka tustaa waa cidi dee inantaa iyo hooyadeeda loogu dari jiray lagu arki jiray iyadagaana ka warrami jiray aniga la iguma darin anigu markii inantaydu dhimatay waan xanuunsaday dhowr goor baan koome galay koomihii iyo wixiiba markii aan ka baxay ayaa cuntadii la iigu daray wax caanihii baa horta u horreeyey caanuhu waa qadhaadhaayeen markaasna caanuhu waa qadhaadha iga daayey markaasna waa geela abaarsaday ee iska dhan waa taxare markaasna maaha taxare bal dhadhamiya markaasaa dadku wada dhadhashaa kulleyma waa deebaa inamadii caanaha laga soo iibsanayo yaa loo tegi jiray war caanaha maxaa ku darteen dee malaa idinkaa wax ku daray annaga waxba kuma darin laba gaadhaa noo yimaada oo caanahoodu waa wanaagsan yihiin caanihiiba inamadii loo geeyo waa dhadhasheen maabala aynu ka dayno anaaba caanihii dido ina iga daaye dabeed caana liidoogaasaa la ii bedelay caana liidooga waxba la iguma darin hooyaday markay qada soo dhigto ayaa cuntada markay istiraado hudhbay tima ku arki jirtay timaha ku aragtee markay afka gelisay ka mudu jireen afka markaasay odhan jirtay timaha halkan yaala markay ka qaado ayay wadaad kun jeer bay quraanka saartay hooyo kadib marka hooyo dhimatay ilaahay u naxariistee sidee noloshii noqotay cuntadaada iyo biyaha cabaysid sidee noqdeen aniga cuntadayda iyo biyahaygu caadi bay ahaayeen laakiin ayeeyo ayaa wax lagu dari jiro mar waxay noqon jireen akhtar marba nooc bay noqon jireen sharaab fiinto ayaa intaan qooshayan halkaa dhigay baa qadhaadh noqday deetna waxaa la yidhi dadkii waxay sheegayaan meebay sheega waxaan leeyihin waa dhiig iyo malax waa shuuro aan walaaqaya halkaan dhigayba ayaa huruud isu bedasho deetna waxay leeyihin waa dhiig iyo malax ay dadku been bay sheegayaan markaa eeg mahayeeyo qura adigana ma kugu dhacday adiga laftaada may aniga waxba igumay dari jirin haa laakiin markii dambe guriga odhan mayna saamay haa way saamaysay waxay saamaysay jimcihii subaxeedii yani waxa weeye marka maanta waa marka waa daraad bay sheekadu bilaabantay sheekada gurigoo dhan markii hore hooyo ka bilaabantay kadibna ayeeyo kadibna muxuu ahaa reerkoo dhan adiga adeer maxaa dadka dhibta kaa soo gaadhay shaksiyan ama idinka soo gaadhay guud ahaan markii sheekada la ogaaday dadkii shalay halkan tubnaa dhibta idin soo gaadhay nooga wayna shiideen markayna shiideen aniga kelidaasay nabargaga dhifteen shiid bay nagu harqiyeen deeta markii dambe
waanu iskaga dareennay guri halkaas abar eeday leedahay baan tagnay aanu hooyanay saakana soo noqotay saakana guriga marka hadallada dadku idinku odhan maxaa ka mid ah hadallada dadku nagu odhan waxaa ka mid ah islaantii guriga ka dhimatay fooxisay ahayd dhiig iyo malax baa qasabadooda ka soconaysa guriga malax iyo dad reerku dhiig bay galeen marmarkii inta la fufujiyey baa reer qof lagu aaso kadibna marmar baa la saaray kadibna waa la fujinayaa islaantii dhimatay markii meydkeedii wada baagbaag bay noqotay kalar bay noqotay intaas sarana casaan bay noqotay inta kalena cadaan waxaasay dadkuna leeyihiin laakiin waxba kama jiraan waad nala daawanayseen wax badanna waxa weeye waa idin kordheen sida ay wax u jiraan runtii waxaanad arkayseen waxyaabaha runtii murugada leh ee aadka looga damqado qoyskan dhibanaha ah ee ay bulshada ku hareeraysan iyadu wax magaratadeedu dhibta u geysanaysay iyo hubsiin la-aanta aanay dadku waxba iska hubsanayn ay u nugul yihiin ama u diyaar yihiin inay wax kasta rumaystaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi qur'aanka kariimka bacda acuudu billahi min ashaytaani arajiim wain jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin oo micnaheedu yahay yani nuxurka aayadduu yahay yani warka in layska hubsado si aan loogu gafin cid kale ilaahay waxaan ka baryaynaa annaga iyo idinkuba dhammaanteen allah waxaynu ka baryaynaa inuu qoyskan ka kor qaado dhibta haysata u duceeya taasaa ugu muhiimsan barnaamijkan waxaa idila socodsiinayay anigoo ah cabdimalik sheekh muuse coldoon waxaana muuqaalada kala qaadayay saaxiibaday cabdiqaadir cismaan dubbad iyo maxamed jookar waa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته